السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب بيال ملك الصود الدون كجوكسان برنامج عصب ولا مقع بحي ما أقتهي أيان سوكر ديني إن شاء الله تعالى أسبوعي بمر أيان سودين دونا وحرجينا يا وح بدن إن أتكفايد دونتان هدي بيراهدو سودو هذا أنت أنا قد قل المقال كفضل لايك صار سبك الله الشير قري رأيك أنا كديبو وما صنتهاي sidaan kuu sheegaba waa ma ogtahay mise la socotaa ma ogtahay mise la socotaa waxaan ku soo qaadanaynaa isbuucan haddii ay yiraahdo qodobo dhowr ah kow midda koowaad ma ogtahay mise la socotaa wadnaha bini aadamku marka kaliya ee uu istaago inay tahay marka qofku uu hindhisayo marka aad hindhisayso waa marka kaliya ee uu shaqo joojin sameeyo wadnahaagu iyo guud ahaanba xubnahaaga kale waana sababta nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu noo yiri marka aad hindhistaan waxaad tiraahdaan alxamdulillah ilaahay u mahadnaqa maadaama wadnihii uu sidiisii ku soo laabtay shaqadiisina uu hore u sii wato hagaag midda labaad ma ogtahay mise la socotaa in afka Soomaaliga uusan ku dhamaan xarafka ka xarafka ka ma jiro jumlad ku dhamaata oo af Soomaaliya ama eray ku dhamaada ma jiro way jiraan erayo ka imaaday afaf qalaad oo Soomaaliyoobay yacni adeegsigoodii markii uu batay Soomaaliyoobay way jiraan oo markii ay afka qalaad joogeen ku dhamaanaya xarafka ka balse markii af Soomaaligii ay imaadeen isbedel baa ku dhacay tusaale ahaan book waa af kale oo qalaad English yacni sababtoo ah waxaan leenahay Soomaaliyeed markaan leenahay waa batay adeegsigiisa baa batay ma jiro booskiisa eray ku jiraahay ma jiro Soomaali ahaan marka adeegsanayno waxaan leenahay book ga buu isku bedelayaa sidaa awgeed eray kasta oo af qalaad ka yimaada oo sidaas ah wuu isbedelayaa wuxuuna isku bedelayaa sida aan ku sheegay xarafka ga hagaag midda saddexaad ma ogtahay mise la socotaa ariga siiba areecadka kuwooda yaryar hal sano iyo wixii ka yar in loo yaqaano ugeeb sidoo kale geela iyaguna marka ay yaryar yihiin in loo yaqaano aaran idahana in loo yaqaano baraar ma ogtahay mise la socotaa sidoo kale ma la socotaa mise ogtahay in Soomaaligu uu leeyahay wax la yiraahdo isku dhigis kala dhihis yacni waa erayo kala macnaa haddana isku si loo dhigo tusaale ahaan dameer iyo dameer marka aan niraahno waxa uu noqonayaa kii labka ahaa ayuu noqonayaa marka aan dameer niraaho markii aan niraahno dameerna tii dhadig ayay noqonaysaa isku sibay u dhigmaan haddana waa kala macno isku sina looma yiraa oo waa kala dhihis tusaale kale haddaan soo qaadano waxaan leenahay duul iyo duul marka aan niraahno waxay noqonaysaa haad yacni waxaani haduulaan ha haadaan shimbirtii way duushay diyaaradii way duushay sidaas baan leenahay mar kale waxaan leenahay duul iyaduna waxay noqonaysaa ku duul meel hebla ku duul ama duul yacni dad wax adiga qoom duul ayay noqon kartaa haddana waa isku dhigmaal isku sibaa loo dhigaa isku sina looma dhaho waxaa la yidhaahdaa isku dhigis kala dhihis haddaba halkaas ma kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni ma ogtahay mise la socotaa insha Allah qaybta dambe la soco way ka xiisa badnaan doontaa haddii ay yiraahdo halka iyo gabagabo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hayloobin inaad muuqaalka sii share garayso like na saar.